mahadnagay xildhibaanadii federaalka ee koonfur galbeed matalaay oo damiirka dadka shacabka reer koonfur galbeed taageeri oo la kahandadii la kaxumaay la kaceebay eedii eedan mahadsan yihiin. bismillaahi raxmaani raxiim. kiin mahad celiye, kiin salaame, kiin adaawas waxaas ninkii eelaga ku hadlayo waa dul istaagana isaga dhabi baa maanta u qorayna qaartaas maanta cid kale uma soo qaada lafta garan iyo Itoobiyaanka wata u soo qaatay inaan madax kala dhaco. waxa kale oo barnaamijka iyadana qayb ka ah ninkii boqor buur madow ahaa oo maanta si qoto dheer loogu soo dhaweeyay magaalada Hargeysa wata hore kugu sheegay laakiin aanu ismanayn cisaaq baa ninkii garaadada hartiyeed ay soo dhaweyn doonaa yeeshee way dhacday guskoon bas ku sii dheereeyeen iyaguna waa dul istaagaya. waxa barnaamijka qodobka ugu horeeya caawa ah deeqdii waxbarashada Puntland baa la bixiyay 157 arday baa la yiri waxa loo qaadaya dalka dibadiisa listiga soo fiiri mise waa baay wax laga sheekeen karo ma waayo Maxamuud Salmaan kor wax xishoon jir Maxamuud Salmaan kor waayo waxba hanbeen jiray Maxamuud Salmaan kor waxba la cunin jiray Maxamuud Salmaan kor warsangeli waa aad isku fahansanayeen waxaan ka soo waayay warsangeli qaylada wax la warsangeli aan qaylinay maxay la qaylinay soo hal qof ba uma dhex jiraba hal qof ba uguma dhex jira qoondada la bixiyay sanaag iyo Highland ba ku jirta iyo gobolka bari intee ka degaanba war hal arday xataa lagu lama kufin ma lagu lama kufin xataa mid xataa hooyadii bahdul baahanta tahay xataa iska dhaaf Maxamuud Salmaan kale hooyadii bahdul baahanta tahay reegeysooda xataa kuma jiro markaan baarnay arrintii oo sida xaaladda dabariyada ay u feednay tolkayo Soomaaliya marqaanti ka ahaada warsangeli wax badan Puntland waa u lisay wax badan Puntland nimada waa ka shaqeey wax badan waxa la yiri ma jeerteen iyo warsangeli baa ma jeerteen isku yihiin siyaad barro madax naga taagan intuu soo hubeeyay bas ka saxsaxda siyaad barra intuu soo hubeeyay nimanka soo laayo maalin farno ma qaadin ragii siyaad barre la socday waa reerka kaliya ama jeerteen waligood far u qaadin way reerkii saas maanta ula dhaqmayna warsangeli isagu waaba nin maanta haddii xaaladdu halkaa ka marayso aan wallaahi inuu meesha uu joogo ka sii taga maahe aan dib u soo noqonayn intaan ka aqaan saldanade waana saldano soo jireena weeye waxa intaa ka daro listiga ka baarnay beesha leelkasaan ka baaray nimankii tanadana waa ka baaray waxaan kaloo ka baaray iyaga ilaa wasiirka maaliyadda ku fadhiyaano shuruuc wasiir maaliyadeed meesha uma joogo bahal maqaar saar oo laa yaqrab walaa yaktub ah lacagta xataa 200 kun Maxamuud Salmaan ku qaadan jireen laga jarayo 10 kun oo dollar qaata baashow nimanka leelkasana meesha u jooga iyadoo waxbarashada laga qadiyay oo loo diiday waxbarashadii maanta leelkasa loo tagay waxa la yiri hubna siiya dani baa dhahaya aan ku weeraro Cali Salmaan iyo Bahdir aan ku weeraro leelkasa waa niman aqli badan way fikiraan ma laba ilmo diyaana jira mise hal ilmo diyaano hadii wixii soo ku waayay ka adkaaday ma oo Puntland iyo hartiyo dhan adoo wata waxba ka qaadi weeyday ha adeer hubna kuma haynay baabuurta soo siisay habar gidir iyo sacad ba buur dushada taagan dhibaatada inaga daabeen nimankii leelkasa waa ka fiiriyay listiga kuma jiraan leelkasana dee dhala isaga jabsano oo bareerani kiya ama reerani kala gu yaqaan ma ahayn nimankaas isagoo wasiirka maaliyadda niika kuma helin ilaa abtinoona ma niikinayo laakiin nin xaqiisa ka taraasulaya ma aho waa horu meesha isaga tagay xiriir laantiisu samaystay waxaan hadda waxa lagu soo waday tollaahi ayaa taginino kaalay bari waxa caawa khatar ah inay galmadu ku beeraan wallahi waa farci dilay u jiraan iyagana tanada halkan ka salaamaya waxa kale oo ka fiiriyay Cali Salmaanki la ilaaha illa allah wala Cali Salmaanki iskool ma aadan miya soo waxbarashada iskuma fiicna iyagana kuma jiraan oo reer bari oo dhanba waxa kaga jira wada Cismaan Axmediya wada nabina wada bahdul baantay iyo khayraad bahdir lagu horkeenayo baa kaga jirta listiga sii baar la rabbi ma ambeerka u dhiman waxaan fiiriyay nimanka dashish siya qaalu inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un way soo dhaafi weey Maxamuud Salmaan waliba Maxamuud Salmaan kala ma ahay nimankii reemaada wasaaradda waxbarashada fadhiyay iyo nimankii bahdul baantay ee meeshan boobay baashi dhaafi weeyday maxaa maalo kaliya cuntoye waxaan kaliya celi hada halkaas xaaladu maraysa markaanti ka wax kale aad ku daray dani inta sawiray madaxdan la gashay fiiri haddaan ka bilaabo
tolkiisaan ka bilaabaya axmedoobe baan ka bilaabaya gacanta axmedoobe saastuu isku dhaafsaday macnaheedu waxa weeye ma ku aaminayay weeye waa ku ogahay inaad danaysto tahay wax la aamini karana aadan ahayn macnaheeda weeye waxaa taasii dheer lugatoor uu hadda madaxweyne ka dhigay madaxweyne ku-xigeen baa isna samaynayo waa sawirka ku-xiga saasuu isna leeyahay macnaheedu waa maxay ma kugu qanacsani weeye waxaa la dhahaa marka waa calaamadaha madaxda isticmaashaha calaamadahan inta badan waa wax brogramka meesha ka socdaa waa qofaan ku qanacsanay ama rabinba waxaan o dhan waxaa ku xiga beesha caalamka iyaduna waa kaas kii dhakada xirnaa waa ninkaan ma ku qanacsanay weeye waxaa ku sii xiga sheekh shariif kuma qanacsanay bi xasan sheekh maxamuud kuma qanacsanay bi war bal qofkaan ummadda ilaahayna diiday tolkiisna diiday oo ummadda reer puntland inuu xoog isaga heystay iyo heesa iyo dhiika ka war soo dhibaato adduun maaha waxaan leeyahay aniga puntland haddaan fiiriyey badbaadi rabtaa base waxaa badbaadin kara xamse iyo xasan sheekh maxamuud baa badbaadin kara puntland qof kale aan us dhigi kara maanta waa badbaadin karaan oo dadka puntland wacyiga maanta ay ku jiraan bay ka saari karaan anugu waxaan dhihi karaa waa xasan sheekh maxamuud iyo xamse wey sida anigu meesha aan maanta khayr ku ogahay wey sababtu waa macnoo soomaali baan nahay dowladda federaalkaan wax ku nahay dastuur ahaan wixii aan leenahay aan qaadano iyo waxay leeyihin ha qaataan laakiin gaajada iyo fakriga iyo eexda iyo xumaanta iyo ciqdiga maanta aan ku sugan nahay horta ilaahay subxaana qaadir aa loo sheegtaa qodobkaas sii gaarsiiya daaqadaha uga tuura dibiro iyo tiimkiisii haddana waxaa lai sheegay inuu mudug wareegayo uu leeyahay hub hala isiiya cali saleebaan iyo bahdir aan ku weeraro ma aqaaday ani laba bahdir jirto haddaysa hal bahdir jirta waa warkii leelkase ilma diyaan horaa loogu hingoobay cali saleebaanna intii hore shalay waa ka awood badan yihi marka guskaas kusii dheerandaniyo baan ku leeyahay nimankaa waxba kama qaadi kartid waayo waxaan dul istaagayaa cisaaqa oo u imaanayaa ninkii lafta gareen ahaa u mahad celiye madaxda etoobiya taageerdha u mahad celiye eelaydii etoobiyaanka taageeray u mahad celiye raaxweynta etoobiyaanka gabdhaha u geenaysa u mahad celiye badda soomaaliya inay etoobiya qaadato u mahad celiye adaa was kaasi caawa tusa ilaahay wejigii wanaa qaarsaa ugu wado niyo waxaan horta daaroodkaa yaqaana sida eeleyda loo dilo hawiyuhu ma yaqaanaan hawiye yaa hawiye idinku wallaahi ma taqaanaan sida eeleyda loo dilo laakiin annagu waa naqaanaa sida eeleyda loo dilo war waxaan ma madaxa ka garaacdaan eelagu dhalay oo aan xishoonayn ummadda soomaaliyeed maanta etoobiyaanka usoo raacaya ma isagay maamulkiisaba xasan sheekh maxamuud iyo xamse qafla albaabeen ay geliyaan waxaan xasuustaa waagii farmaajo oo uu mukhtaar rowo baydhabo kasoo dhex qabanaya xasuustaa tii oo kale xamse iyo xasan inay ku dhaqaaqaan wey oo wallaahi oo bilaahi oo tallaahi si kale lahay haddayse ku dhaqaaqan soo maaha kuwo badan oo hadda isqarinaya iyaguna sida kale u bareeray oo kale u bareeraya wariyaha baarlamaanka haddii etoobiya laga dhex taageerayo haddii maamuladii qaarkood etoobiyaan u gacan galeen aniga maamul maanta aas dhihi kara waa fiyow yahay haddii ilaahay laga baqayo waxaa jira maamulkaas halkaas hawiye daarood ku midoobeen ee la yihahdo magaciisa galmudug baa jira oo aan anigu weli etoobiyaan ku arag laakiin dalka intiisa kale iyo jubbaland jubbaland etoobiyaanka waa laga saaray iyo gobolka banaadir saddexda hirshabelle waxaa lai sheegay qeybo kamida joogaan baydhabo iyo koonfur galbeed gacantay ku hayaan dibirana gacantay ku hayaan qatawaarkan qofkan cantalaaliyaa dheer leh cagaadha dheer shaa u qayuuran maarta ee lafta gareen la dhaho isaga mindhaaw nin etoobiyaan qabaasir so waxaasu maanta soomaali la hortaagay ilaah baa kugu dhaari waxaas hadda reer dhan buu haldoor u yahay aarare waaye aarare baa lagu leeyahay aarare kuwii waagii morgan gaajada ku dili jiray sooma aarare hawiyow nimankaan haddiidaan cunan qabateen iidaan oomin wallaahi bilaahi tallaahi niman xasilaya maaha waxaan halkan fariin uga dirayaa shacab weynaha beesha hawiye iyo shacabka soomaaliyeed war ciidamada qorta waxaan kale aan qabanay etoobiyaanka waana ka xunay waxaa jira kuwo badan oo falsafad abuuro oo dhaha maxaa masar waddanka loo keenay masar hadday jabaadaha etoobiya hubayso oo etoobiyaanku annaga na soo weeraraan na qabsadaan ma tabar baa lena wallahi inta wiil naga haray inaan etoobiya madaxayna hoos qolyo c b b a marka waxay ka dhiganayaan war ama difaac ka dhiganayaan soomaaliya dal awoodle ma aha waa c b b wey waa kuwa u xiisay horta waxaan inay shacabku fahmaan wey waxaa la isku haysto waa maxay
ورسيدي فرماتشو وكباها نوو قاضي حسن الشيخ محمود كباها نوو قاضي حسن واديدية يقول لي أنا أووين إثيوبيان كبا وما قاضين فمل كيجينا وما قاضين هوينا ولي إثيوبيا كالكال ما نقونه دقن هوينا ما هي وراني يدايو لي إثيوبيا كواوي مركا هوينا سماسات كانوا عسل أحمر الكريم ومركا كواسي بيبيع عليه مصر ودك الله وقت قال جوي إن صوماليا اعتماده أنا عقبات نوتها صوابت وامحي عقبات نوتها وعويه haddii ay jabhadaha Ethiopia joogto ee hubayso Ethiopia laga yaabo inay Soomaaliya xoog soo gasho waa aqli raqiis ah way marka waa aragti raqiis ah way cadawga waa saaxiibkiis hadaa sidii raggi isaga celin sidii naagii baad qanuud leedahay soo habartami lahay wallahi xasan sheekh maxamed waa geesi talwaayay arare iyo CBB iyo ina gumeed iyo jaajuus oo dhan horta kuwa taariikhda baratay iyaga laakiin xasan mid baa ka codsanaya xamse 20 sano inay labada kursi ku fadhiyaan ilaa wadanka ciidan adag uu ka helayo kuwaan kala soo gaajoonayaan isa soo dhiibayaan walaanaga wanaaska wadada u galay ku ridnay risaas waaweyn haddana kuwadna aan walaaceen siyaad barre hooyadii 9 bilood ku dhashay xasan sheekh maxamuud hooyadii 9 bilood ku dhashay xasan hadduu sa tilaabada maanta kadib qaadan waa fulay wallahi waa fulay billahi wa tallahi kulli ana waa yeellah marka arka dadkan oo kala dalka inay joogan qofka kuma aamineenba anaaba la dhiman lahaa xasan maanta waa 7 jir wadanka dhan inuu la dhintaa hadhow markuu xasan meesha ka tagana xamsa fuulay qodobkay u dambeeyay baan dul istaagaya oo ahaa nimankii cisaaq ninka horta boqor burmada la soo dhaweeyay sida diiran arkaysan baa loo soo dhaweeyay caleema loo wataan idin sheegay ninkii lacag 5 milyan ah Muuse siiyay waana la soo xareeyay laakiin la soo xareeyay anis ma lahayn بريبو أنا عساق ويشين كرنا ويلي أبتجينا وانا درسنا وانا هاي اسمه لا يعني كي اسمه ده هرتيد فيريهو يكون دلوين بهاي بس أصلا ده لو سود وينيه لكن هذا كذب اسمه ده عساق وبلا إن ستة صور نحصو وهاي هرتجو ولا ينقلاد وعي تمام ده عساق ولا ينبقر مدو وأنا هو يري بقرة هين وأبي بقرة هين وفهم الكيس بقرتوي صامرين سوق سكوا عنا شوي ما تساس وطن وابلن إلهي إن اسم إساق أنا قلنا دين ما لك استمد بكرة عن صنايع ما أنت كنا وهرية علوري بقول علوري ما أنت كنا عن صنايع وهرية أنت سو كوا بدو داما وسو هبرت على يو داما كوا جرحتك كلا دو داما يو سمرونك إساق وحكو درس يو داما يو جرحتك كنا مع إساق سمرونك بيد بكو داما نين كان معارض بوانجي علوش ويلني دور كاسو تشوي مالنا الشباب ولا شقيني مالنا ولا شقيني دولة كلوا لحم عليه حتى قروا نقول بصوت وصنايع نبان نقوم معه وهاي نك مركو نرجع ميل بكون يا ماشي ساسو دور شك اللي ما انت هذا بال نك سوسو قوي إنه سقد يلا يروح علوشة كبور انت حاران وناي يوم حوله بانورت دين شيء نك اسمرك بور مدوبه معارض سوا وما تساس لو سلوينه كيس مرونا وانت عساق قدب دقينا ولي حبس بكجرا ولو ما انت لشيء يبا ان وكوما غراي كيس مرون كاوي ما يا وريا ما بخيي ان سمرون دولي اساسا لو تلقى اسكر راعي جري wax ka war badan ma la du ku ima warbu soo wada haduu kaashi socdo warbu sii wada kii wali meeshii ku jira nafaqa daro meeshii ugu dhiman raaca kuwii mucaarad kale ay aytamayeen oo kuwa asaas loo soo dhaweeyay horta cisaaq qofkii u jaba kama kacaan نين ميت كلا واو دامايو غير حادثك سلطان كود لugta dhaxal lagu saara mid suldaano ay leeyihiin shaydaan u eego Farantiya badan maarto غير حادثku leeyihiin isaaqa kala lugta dhaxay ku salaamaan wuxuu haystaa 674 ulbu haystaa qaartan aan la qaar wuxuu kala haystaa 76 sor buu haystaa sor waxa la mindi sor buu haystaa wuxuu haystaa 4 BKM buu haystaa يقول هيستا تضباطن قري أو فال يا أكيال سوتشره ما يولي يعني سيد قري أو أكيال فال سوتشره هي لما جاري أو جوان أو باورتو جوانا أو قري سارني هو كي بورت الله فولين وي ما أنت دوت أنت أساس كاس فرانتياش بدنو اسم كشجرة كان يسوي ريركيسو بور مدوق واحد لوسو دوينيو هو جوني هيستان SSB كقرنتاي بابرج على هيستا لكن كان يكون دامع كميدا كاجر حدث كايا كميدا ولقط دخل لو ساعمو كلف سركيسو عقاب ما لا وا غندب
ayuu ganab u yahay habar awashu ganab u yahay sheegaanta waa ganab ka mid ah wey muusuu ganab u yahay hadda wax kale uma imaan inuu muuse soo celiyey marka waa ninkii garaadada SSC khaatuna caayey qaar baa dhihi doona yacquub adigoo soo adiga caayey annagu tol isku laandheeranayaan oo ahay annaga maanta waxaa isku nahay baa ka weyn waxaa isleenahay waxaan birna goyn biyana meerin baa naga dhexeeya laakiin sidiinoo kale annagu dhaqan ma aanu soo dhaweyneyn nin isimadayna u gafa ma aanu soo dhaweyneyn hase yeeshee idinkaas noo bilaabay hadda kadib adkaysto isim baana laga caaya baldhaha kuwaan khaniisiinta eega isimada isaaq ku sheegaysaa faraantiyaasha badan nidar ilaahay waxaa igu ah ee abaarsa ka soo wada baxay inaan halkaa kaga dhaansada igu nidar ilaahay idinkaa le noo bilaabay cayda isimada oo weliba la isku soo dhaweeyo la isku karaameeyo soo maaha waaya isim loo waayo baa bacay boqor bucbuc garaad bucbuc loo waayo baa bacay fadlan leegto muuqaalka meel dheer bay geysaa loofka anigoo yacquub siyaado wiilkiina baalaha iga daata fiida waa haddii uu kusoo gaaran iga sii shargare assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu barnaamijkaani barnaamijka intaan kulmi doonno bejka isha ku haya mar walba warar xaqiiqa ka dheehanaysa insha allah